سلام دفيس يا مقال دغخ iyo hoostoodo mar haduu dhakuusado wala dhibiyaa hulkay bugbugo waa kale de ma laayo waxa dhacay dagaalkii balaayadii la yiraahdo balaayadii boodor ogriib iyo gadid oo dad shacab lagu xasuuqay hal qof ee dhulka ka dirirmay kadib dagaalkii waxa dhacay dagaal adag oo lagu qaaday meesha la yiraahdo cilmudal buuhoodle jabadii way midowday سلامالكي كورسو قلي جلعساني بو كسو بحي waxay wax ku yeesheen anterigraf artillery sawaariikh bambano rocket tangiyo mino anta tangi anta personal anta vehicle giyoto ila dhagar koorsadii ciidamada warso tii ugu fiicnay soo wada qaateen hubka qaar bay wadeen baabuurtii dawladii Maxamed Siyaad Barrana anterigrafku uma saareen gaadiidka sida T7ka suuga shilkaha iyo dhishikaha laakiin jabhadu way u rarnay waxay ahayd farsamo Liibiya iyo iska kaashadeen iyo quburadii dalay Kooriya ay kamid ahayd daahir dheer iyo ragii golaha baarlamaanka ku jiray buuhood lacagta la mariyay wala soo laabtay cilmiga lacagta la mariyay qalcadii cilmiga ma la yiraahdaa ya 180 baa ku dhimatay oo jabhada ah riixaaji ah laakiin 1260 baa taliskii faashiga shacbi diidkii mawduuc rejimkii barre iyo 75 مع تانجيال والله قاعونه داسكي دب دم لو مدي قلعد علم دباب ليرادا ادو وقتك بعدي waxa dhacay misana dagaalkii la oran jiray ugubiya iyo argosiga eelay 86 ayaa eelay lagu dilay meeshii laga guuray oo dhalinyaro yar looga tagana ugubiya inama yar oo guursaba karinba oo 25 ay ku dilay say wax u dhaceen markaas kadib dagaalkii sidii u socday wixii dhaca dalka gudihiisa wixii ahaana waxa lagu hayay tacaddi badan layn xasuuq gabadha qurxoon ftiga qurxoon geela dhalay iyo jidgooyada iyo in ganacsi qof ganacsan kara aan la arag oo raaxad salaam dufeys iyo maqal dhagax iyo hoostoodo mar haduu dhakuusado wala dhibiyaa hulkay bugbugo waa kale salaam hal mar iskala jiq kadib waxa heshiiyay 1980 iyo 6dii baa waxa la galay dib habayntii SSDF wax la leeyahay ilaa waxa jira heshiis Afrikadu ka shaqeysay oo ay ku heshiinayaan taliskii dhargiga ahaa Dhasraan Mingiste Xayla Maryan iyo taliskii faashiga shacbi diidkii oo Maldooxi Maxamed Siyaad Barre oo laga saarayay EBRDF dalka Soomaaliya liiri ka eri adiguna SSDF SNM eri SNM tu taakula dabada ma ahay hubka ay furtaan wax ku dilayay kadib heshiiskaas daaroodiyo noqday waa mid kale lagu dhisay dekada Boosaaso jirtay waa la soo xariyay intii diidanay oo baqaysay Cabdullaahi Yuusuf waa la xiray leadershipkii sigidkii dagaalka Raaxaaji Saleebaan siganana waa la xirayba oo 9 iyo 2 la soo daayay 93 dhexdood ma garat heshiiskaas shacabkii oo wax ka qaata Itoobiya ka soo wareegay dalka la soo gal waa la shuureeyay gobolka iyo qaybta iyo ilaa madaxtooyada waa la shuureeyay saraakiishii taliskii faashiga ahaa iyo marixaankiisii way shireen waxayna u shireen qoladan gam laga dhiga de ma laayo waxa dhacay dagaalkii balaayadii la yiraahdo balaayadii boodor ogriib iyo gadid oo dad shacab lagu xasuuqay hal qof ee dhulka ka dirirmay gaariga baroonleeda la dhihi jiray ya suuq T7 shilke taangi iyo tow artifact da صدن ما صدن يهوسر reeradhan hadu ku habsanayay raaxaaj lagu weerar usbuuc ka bacdi taliyay qaybta 12 ina diriya awal bacda soo istaagay maadaama aan horay ku iri waa wada military boolisku waa military maamulku waa military ku barin military soo faylay yiri booliska aw degmada cadaad ayagoo fayshan 12 nin ya colonel ya wasama gardari wiilkiisi oo karton iyo colonel ka mid ahaa ayagoo fayshan saasalaanta u siinaya oo la taliye intaas habsan intaas beeshin intaas joogto riboodka inta bixinayay iyo staafkiisa yiri laaye sabdon madaxa laga wada jir shacabkii xabad duqaad xabad meel lagu hayn karaa dawlad iyo shacab dirinaya magaalada waa la iska saarayba waxa bilowday dagaal gorilla faykal inta saldhig miduu igalgadu ku taala in ragii SSDF ka yimid tabcooyinka iyo taktikada dagaalka qiin ay galaan sida godan laba sida ceelbuur
bulacle xardheere hobiyo jalalaqsi jimbiley aadan yabaal maxaas moqokor maxaas iyo moqokor inta la gelinin waxa dhacay gurceel oo lagu dilay taliye qaybta hore 12aad ahaa cabdi ninka la oran jiray baraagaha jibshay ya gabdhahana kufsigooda mubaaxiyay oo kamid ahaa ciidamada xoogga dalka asal ahaan nin wuxuu ahaa dir ah oo gaadsana laakiin gabar baraxaan uu qabay صح gaadiid baa laga qaatay xeradii lama galay oo waxa la qaatay wiciidii dagaalkii beelaha kalena uu ku faafay laftiisu xamar baa la galay ilaa dibad laga soo dagaalamay wax taa kuleynay male marka saa ku leeyahay jamhad ma jidho jamhadda USC Xuseen Cali Shido ayaa ka ahaa gudoomiye London ayuu fadhiyay wax saxaafadda quseeyay ahayd ma ahayn wax practical loo arkay oo ciidamo raashin iyo garaam iyo taakulo iyo hub laba ahayn shacabku dhaabuhu dubanayay ridiisu qalanayay ratigiisu raranayay dagaalna waa lagu jiray naf muhiim ah kadib xamar baa la galay xamar markii la galay waa la isqaybiyay nin kastaaba midig iyo bidix baa la kala lahaa xamar intaan la gelin maalin waa inta ka dhac soo waa aad iyo aad Allah ku toosiyay maalin waa gaas aad qalbigaaga taagna cadaada markii lagu laayay saraakiisha iyo booliska odayaasha culimada diinka idoo lagu laayay baabuur 8 taangi ah ducule inta galan ay masaajidkii iyo motorkii dhulka dhigeen dagaal halkan qaybtaan 12aad dhaqaroone iyo ka iimaanaysa cawdaq iyo meeshan waxa dhacay dagaalka la yiraahdo maalin waa wuxuu ahaa 2 maalmood oo socda taangiyaal baa looga qabsaday taangiyaashii farxadii baa la daandaamay in muddaha la waday hal baylood baan ahay 2 baylood baan noo joogtay Umar Hagafay baa la oran jiray nikridana waxa la oran jiray Cali Goor ilaahay ha u naxariisto labadiiba kadib dagaalkii maalin waa alfaha tuurta loo saaray baar iyo boolo iyo baandad maalinta ninde uu leeyahay basuuke iyo faal iyo markii aaka balcaleeyay tareesada waxaan ugu riday biriqsideedii bartankan ka taagnaa fula been abaabule bidixdan u xigay kooxda aan boobaha u sidee maxan madax bustaala aqaan siyaad bare beerka laga toogto ragii bidaarta lahaa gararada karonlay kabtan gaashaan leh asa wada waran askaaxda ilaa 300 oo nin bay kaga kacay